Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada walaalayaal. Maanta waxaan dhigaynaa move on Somali noqonay kelmadihii Farsiiska qaybtii sagaalaad oo ah qaybtii labaad oo diiniga ah ee ay loobin insha Allah dad nagu cusubtiin inay saabonaysiin u baaxtaajay saxaabtiina insha Allah komentarkana ra'yigiina nagula wadaaga sidii caadada ahayd insha Allah waan akhrin haddana waan macnayn doonaa kelmadahan insha Allah kursina ku qoran arkayno. Kelmadda ugu horeysa maanta waa la prière. La prière. Kelmadda ku xigta le jeûne. Kelmadda saddexaad ku xigta pèlerinage. Kelmadda afraad ku xigta aumône. Kelmadda kale ku xigta unicité. Kelmadda kale ku xigta le songe. Kelmadda kale ku xigta le compagnon. Kelmadda kale ku xigta la charité. Kelmadda kale ku xigta la charité. Kelmadda kale ku xigta envoyer. Kelmadda kale ku xigta envoyer. Kelmadda kale u dambaysa le Coran. sida imika macnaheedu insha Allah macnaynaa la prière waa maxay? waa salaada. La prière waxa la yiraahdaa salaada baa la yiraahdaa ama la prière waxay kala noqotaa ducadana way noqotaa. La prière ducana way noqotaa, salaadana way noqotaa. Le jeûne waa soonka. Le jeûne maxaa la yiraahdaa? Soonka ama le Ramadan waa la yiraahdaa. Ramadan waa Soomaali, le Ramadan way yiraahdaan Farsiisku, le Ramadan waa la yiraahdaa. Pèlerinage waa maxay? waa xajka. Pèlerinage waa maxay? waa xajka. Pèlerinage waa maxay? waa xajka. Aumône waxaa la yiraahdaa sakada. Le zakana way yiraahdaan. Aumône waa sakada. Le zakana way yiraahdaan oo ah sakada. Unicité kelmadda kale waxay waa unicité oo ah tawxiid. Unicité waxaa la yiraahdaa tawxiid ama waxaa la yiraahdaa kelmadda caadiyan hadaan macneeyo midnimo way noqotaa. imika tawxiidka diiniyan waa tawxiidka la yiraahdaa. Les anges waa maxay? waa malaa'igta. Les anges waa maxay? waa malaa'igta. Le compagnon waa asxaabta. Le compagnon maxay? waa asxaabta. Le compagnon du prophète asxaabtii nebiga. Le compagnon maxay? waa asxaabta. La charité waa sadaqada. La charité waa maxay? waa sadaqada. Envoyer waa erge. Envoyer waa maxay? waa erge. Messager waa rasuul. Prophète waa nebi. La charité waa sadaqo. kolka farq su'aasha komentarka soo jawaab insha Allah maxaa u dhaxeeya sadaqada iyo sakada? su'aasha jawaabteeda inaan komentarka igula wadaagtiin baan jeclahay. Soomaali ku soo qor komentarka hoosta faqriga u dhaxeeya labada sakada iyo maxay ahayd sakada iyo maxay ahayd sadaqada. Kelmadda ku xigta envoyer maxay? waa erge. Envoyer maxay? waa erge. Kelmadda u dambaysana le Coran oo ah Qur'aanka. Le Coran waa maxay? waa Qur'aanka la yiraahdaa le Coran. intana waa 10 kelmadood qayb kale ku xigta. qaybta kale ku xigta kana waa 10 kale ku xigta. waa 20 kelmadood baan kasoo diyaariyay maanta qaybtii labaad kelmadaha diiniga ah. kelmadda ku xigta waa adoration. La révélation, la tombe, le paradis, l'enfer, acte, destin, abolition, justice, péché. Adoration kelmadda ugu horeysa adoration waa maxay? waa cibaadada. Adoration maxaa la yiraahdaa? cibaadada. La révélation waa waxyiga. La révélation waa waxyiga. La tombe waa maxay? waa qabriga. La tombe waa maxay? waa qabriga. Le paradis waa jannada. Le paradis waa jannada. kelmadda kale xigta l'enfer waa cadaabta. L'enfer maxaa la yiraahdaa? cadaabta. Acte waa maxay? waa camal. Acte maxaa? waa camal. Destin waa qadar weyn. Destin waxaa la yiraahdaa qadarka. Destin waa qadarka. la qadar. Abolition waa weysaysiga. Abolition waxaa la yiraahdaa les abolitions waa maxay? waa weysaysiga. Justice waa maxay? waa cadaalad. Péché waa dembiga. Péché maxaa la yiraahdaa? dembiga ayaa la yiraahdaa. insha Allah qayb kale saddexaadna way jirtaa iyo qayb kale afraad waan soo biirin doonaa insha Allah. hadaad nagu cusubtiin ay loobin insha Allah inaad subscribe saartiin asxaabtiina aad u baaxtaajaysiin insha Allah. waa ka mar labaad baan ku celin. La prière oo ah salaada. Le jeûne soonka. Pèlerinage xajka. Aumône ama les aumônes sakada ama l'aumône sakada. Unicité tawxiidka. macna kalena way yeelataa naga dhigay haddii macna caadi loo isticmaalo waxay noqotaa midnimo.
iminka diin ahaan baa loo isticmaalaya inay waa tawxiid. Les anges waa maxay? Waa malaa'igta. Les compagnons waa asxaabta, les compagnons du prophète, asxaabtii nebiga. La charité sadaqada. Envoyé-na waa maxay? Waa ergey. waxaa lamid ah kelmada u dhow message u dhow oo ah rasuul iyo prophet oo ah nebi. Le Coran waa maxay? Waa qur'aanka. Adoration waa maxay? Waa cibaadada. La révélation waa maxay? Waa waxyiga. La tombe waa maxay? Waa qabriga. Le paradis waa maxay? Waa jannada. L'enfer waa maxay? Waa cadaabta. Acte waa maxay? Waa camal. Destin waa qadar. Abilison weysaysi. Justice cadaalad. Péché-na waa dembi. insha Allah inta ayaan ku joojinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.